السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يسوعنا إذن الجوكتنبا كسر هذا برتي يوتيوب عفمات دير عفمات عمر دير عبادة صوبان يعني دي رجينية عاوة ياي هرتا قادك إثيوبيا وحلال يا سيري قادك كينيا ولا تشوتيسي محل لقى فايدي الحوين فرماجة أرنتاس ما أصيبي بسؤال وقع صاري سامين انتلعي bulshada u geysatay marka laga hadlo isticmaalka qaadka dhaqaale ahaanse maxay soo kordhisay maxaase laga faa'iiday waa maxay qaad for fish kalluunkeeni oo qaad lagu bedeshay arrimahaas ayaan kor istaagaynaa marka horese waxaan rabaa inaan ku bilaabo haddii alla idmo statistics yar oo numbers ah qalima soo qaata soo fariista soo dhawaada intii aan qaadka la joojin bishii March 2020 Soomaaliya waxa ka soo degi jirtay ila soo qaata calculator-kiina xisaabad la cajiibtaan baa caawin tusayay maalin walba Soomaaliya waxa ka soo degi jirtay magaalooyinka waliba meel walba oo Soomaaliya ma aha Jubbaland oo dhan kuma jirto meelaha aeroboorada ku yaalaan oo ay ka mid yihiin Muqdisho Jowhar Beledweyne Galkacyo Cadaado Caabudwaaq Garowe Boosaaso kuma jirto Qardho meesha la yiraahdo Baran Baydhabo Laascaano koob iyo 10 magaalo adigu aan tirinay oo aan aruurinay qaadka totalka ah oo aan xogta aerobooradaas aan ka soo helay oo ka degi jiray wuxuu ahaa 3750 jawaan totalka 3750 jawaan oo ay qaad Kenya leedahay baa geyn jiray magaalooyinkaas jawaanka qiimaha netka oo ay Kenya qaato wuxuu ahaan jiray $450 ber jawaankii macnaheedu waxa weeye halkii maalin Kenya waxay Soomaaliya ka qaadan jirtay oo intaas diyaaraduhu ay keenaan ah $1,687,500 oo ku celinaya $1,687,500 intaas waxaan ku sii dhaafinaynaa bal bishii meeqay qaadan jireen marka 30 maalmood baan ku sii dhufanaynaa waa 50 milyan bishii qaad Kenya ay keeni jirtay wuxuu ahaa 50 milyan 625,000 haddii aan ku sii dhufano marka March baa la joojiyay waxaan maraynaa August bishii kale let's say 17 bilood buu hawada ka maqnaa haddaan xisaabtaan 17 ku dhufano Soomaaliya waxa u baaqatay oo Kenya aadi lahayd inta madaxweyne Farmaajo go'aankan bishii March markuu gaaray kadib waxa lacag dollar oo cad oo cash oo boorsooyin lagu wado 860 milyan 625,000 oo ku celinaya 860 milyan 625,000 xisaabtan waxay ku timid mar kale aan ku celinayaa qaadka magaalooyinkaas 12 magaalo ka degi jiray wuxuu ahaa haddii alla ku idmaayo 3750 jawaan baan waxaan ku dhufanay maalinkii bay soo degi halkii maalin bay soo degi jireen baan waxaan ku dhufanay 17 bilood oo qaadku maqnaa xisaabtan waxay noqotay 860 milyan 625,000 waxa xusid mudan lacagtani inay tahay in ka badan miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qaadna loo kaga qaadan jiray arrintaasi waa soo xirantay kaashkaas baxaya dhiig bax dhaqaalo ahaa waa istaagay waa guul maxaa xiga qaad for fish intaan u gudbin saameyn muxuu kala yeeshay lacagtaas waa istaagtay saameynta uu yeeshay qaadkii markuu meesha ka baxay diyaaraduhu waxay sahli jireen accessibility iyo availability wax la dhaho qaadka inuu meel walba yaallo mar walbana uu diyaar yahay ninka qaadka cunaa markuu subaxii soo tooso inuu heli karo subaxii baba kacaan goor dambe kacaan inuu heli karo anytime uu tooso bargo noqdo qaad diyaara inuu heli karo waxa fududeyn jirtay diyaaradaha Kenya magaalooyinka ay ka mid yihiin Hobyo Jariban Garacad Eyl Calula Qandala baranta calmadowda fog sanaag
magaalooyinkaas xadka etoobiyana ka fog xadka kenyana ka fog qaadkii aad ayuu uga yaraaday xogtan aan soo aroorinay isticmaalka qaadku hoos ayuu u dhacay gobollada baadiyaha ah waxaana fududayn jiray oo u dhoweyn jiray qaadka diyaaradaha kenya magaalooyinka waaweyn oo muqdisho gaalkacyo beledweyne booro meel walba garowe waxaa taga qaadkii etoobiyaankaa taga laakiin xogta haddana aan soo aroorinay waxay sheegaysaa sidii kenya loo cuni jiray inaan loo cunin loona jeclayn sababtaas awgeed qaad kenya markii la waayana hoos u dhac isticmaalka qaadka inuu ka yimid taasna waa guul qodobka aan ku xujinayo dadkii runtii aad indhaha u taagay baan ahaa markii aan maqlay qaad for fish kalluunkii resourcekii wixii ugu weynaa hantidii ugu weyneed aan lahayn baan daroogo ku bedelan dadkii aad uga carooday waxaan ahaa aad uga soo horjeeday laakiin markaan xogtan arooriyey markaan dib u fiirinay saamaynta iyo imbaktiga dhaqaale oo uu yeeshay oo aan sii ogaanay weliba xogta ah oo aan caawa idinla wadaagayo magaalada warsheekh waxaa laga furayaa warshad kalluunka soo saarta qasacadaysa diyaarisa dhoofisa sidoo kale magaalada boosaaso iyo garacad labadaasaa laysku hayaa midday noqon doonto laakiin xogta aan idiin hayo waxay sheegaysaa alaabtii iyo warshadihii ganacsata soomaaliyeed baa ka qaadaya wigagan gudihiisa dalka turkiga halkaasaa la geenaya waa la rakibayaa xabadda kalluunka marka laga soo saaro warshada hore loo geenaya iyadaa nadiifinaysa qaboojinaysa qasacadaynaysa diyaarinaysa ready made in Somalia asoo ku qoran tahay baa la dhoofinaya arrintaasna waxaa sahashay ganacsada Soomaaliyeed oo ku fikiray kollay haddii maskaxdiina nala ka weeraray oo qaad dadkii la siiyey maalkiina nala ka weeraray muruqiina la fariisiyey bal ana at least mid badbaadino haddana laba badbaadin karin ganacsatada qaadka Kenya keensata Kenya joojisay oo kan Ethiopia for fish ka samaysay waxay kaloo samaysay wax la yiraahdo job opportunity rag badan oo Soomaaliyeed baa hadda u shaqo tagay dimaanka kalluunka badan oo looga baahan yahay restaurantiyada waaweyn oo Ethiopia remember Ethiopia waa kobacday more civilized bay noqotay waa hub of Africa waa more waxay noqotay maaragtay economigeedu waa grow gareeyay hoteeladeeda iyo dimaanka kalluunka ay u qabaan uu baday excuse me aad buu sii kordhaya marka gaabkaas oo dhan inaan buuxino oo aan u geyno kadibna at the same time waxaan bildigaraynaa warshadaheena kalluunka at the same time waxaan kordhinaynaa xirfadeennii kalluumaysiga iyo soo saarintiisa iyo kubcintiisa iyo diyaarintiisa iyo dhoofintiisa midda ugu muhiimsan waxaan dhisaynaa capacity ahayd made in Somalia fish ah in dalka dibadiisa loo dhoofiyo 30 sano kadib taasoo not only Ethiopia aan ku ekaan doonin ee ay noqon doonto Ethiopiaanku market aan ku barmood garayno kalluunkeena oo wadamo kale aan oran karno yes kalluunka waa export karayna for example we export to Ethiopia a good classic case with evidence based waa kana Ethiopian geena intaasoo tan geena marka this is waxay sii sahlaysaa in wadamo kala kalluunka loobsadaan for sababahaas iyo capacity-ga fishing-keena oo garow garaysa iyo more importantly opportunity-ga iyo shaqada employment-ga ay samaysay sababahaas ayaan ku taageeraya laakiin and this is the big laakiin waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo when the time is right in lala soo fariisan karo when the time is right oo la oran karo thank you very much we have the warshadihi now kalluunka dhoofinayay we have the capacity now and adduunka ugu dhoofin karnay and we only take cash now thank you yani this time cash حتى Mastercard we don't even want check cash capacity guys يا أوداس ولا يلان دونا ولا لقاري دونا for those reasons أيان إسلاها هذه هلو تاجرو and شكدي أنتي لسه عطي قيمة الوضع برنامج شكدي ويلكي قوسم وياي بوجي سواكن and هدي الله يدمو
amazonka ayaad ka dalban kartaan sidoo kale loox bareys ayaad ka dalban kartaan muqdisho haddaad joogtaanna ha u dayma la-aanina buuggan waxaad ka heli kartaan sayla bookshop oo ku yaala maka almukarama guriga hooyooyinka agaarkiisa sanchet agteeda halkaas ayaad ka helaysaan waa wiilkii quusan waayey amazonka sheekada oo dhammaystiran haddii aan leedmo marka aan isla soconno insha allah arrinta marka qaad for fish for a long time marka laga fiiriyo capacity oo dhisantay dhaqaalahaasoo dareenka ah bixi jiro safe garoobay oo hadda aan qaadkii majority of the money lagu qaadan lahaa fish baa hadda lagu qaataa job opportunity bilaabmay capacity oo bildigaraynaysa dadkeeniyo training qaadanaya hadda quality iyo healthy and safety wax walba waa in laga taxadiraa those are skills ay dadkan haysan doonaan haddii lagu kala tago ama haddii la joojiyo ama haddaan la joojin waa skills aan garaynay tababaradan u socda inaan productigeeni kalluunkeeni inaan dhoofino waxaa xusid mudan kalluunka aan ka caroonaynay oo aan oranaynay oo dadkii markii horeba ka booday anagaygan aan number 1 ka ahaa waxaa xusid mudan kalluunkaas inuu baylaha ahaa oo ay dowlado iyo maraakiib shisheeye iska guran jireen hadda haddiiba la yiri adduunku wuxuu ku shaqeeyaa supply and demand haddiiba ay dowladdu ku fikirtay dadkani demandkii wuu jiraa oo dadkii wayba gariirayaan dariiqyaday taagan yihiin sidee baa xeere lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan sidee baan iyagana maaragtay waxay ku madadaashaan u siinaa annaguna bulshadii dib wax ugu soo celinaa marka aad baan u boorinayaa ganacsatada qaad for fish I hope aad emphasize waxaa loo saaray culays weyn la saaray quality controlka kalluunka in tayadiisa la ilaaliyo aad baan u dhiirigelinayaa because this is a starting case waa meeshii aan ka bilaabaynay product inaan dibad geyno soomaalida ka shaqaynaysa oo opportunitygaas iyo shaqadaas la siiyana aad baan ugu boorinayaa inay quality controlka eegaan sidoo kale walaalaha xagga kasoo dhoofinaya qaadka oo keenayana iyagu waxaan leenahay idinka laftigiina quality controlkiisa eega oo ka ilaaliya ugana diga inay Ethiopianku pesticide-ka bahasha la yiraahdo DDT-da oo qaadka lagu buufiyo inay ka yareeyaan ama totally ka joojiyaan barnaamijkaas insha Allah caaw intaasan kusoo goobeen laakiin adiga aragtidaadu waa noo muhiim mar kale ayaan ku leeyahay buuggii wiilkii quusan waayey amazonka ama loox press loox wuxuu qoran yahay LOOH waa looxiyo xaadiyo ha laga dhigay waa loox press baad ka dalban kartaan waa big website all the books in the world oo Soomaali ah Islaamic ah waad ka heli kartaan halkaas wiilkii quusan waayey Google simple haddaad ku qortid loox press buu ku geenayaa ama amazonka ayuu ku geenayaa ka dalban kartaa you are very welcome inaad tagtid waxaad kaloo idinku boorinayaa insha Allah inaad sii ballaarisaan channelka asxaabtana la wadaagtaan intaan kale ku kulmi doono waa caawa iyo walaalkiin oo mar kale idin le habeenku haydin wacnaado maalintu haydin wacnaato xilli walba aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu